marka ujeedada tababaradan isdaba xiga oo ah tababarkii saddexaad ee tababar meheradeedka lagu dhisay aqoonta saraakiisha heerarka kala duwan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed ujeedadeedu maxay tahay marka in maadaama wadanka uu u socdo xasilooni federal system dawlad goboleedyo ay abuurmayaan waxa loo adeegayna ay tahay bulshada Soomaaliyeed in aan u diyaarino bulshada Soomaaliyeed anagoonan ka been sheegaynin sarkaal booliis oo aqoon u leh sida loo maamulo ama loo daryeelo bulshada waayo shaqada bidda koowaad ee laga rabo sarkaalka booliiska waxay tahay inuu u adeego bulshada horta maxay u baahan tahay يعني shaqada kale u xil saaran tahay dhowridda kala dambeynta ilaalinta sharciga xasiloonida amniga gudaha marka laga soo tago mid ka horeysa waxa soo dhan waxa waay war ummadda degan xaafad hiblaayo ama degme hiblaayo waxa ay rabaan maxay tahay waxa dhiba tababarka hadda anaka aan marnay waa tijaabo aha 45 maalmood 40 maalmood kan dhabta awaal gali doona marka waxaan goordhow u gudbi doonaa marka sida aad la socotaan maadaama sida dastuurka qodobkiisa 126 uu qoraayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu yahay heer federaal iyo heer dawlad goboleed uu yahay inaan naftirkeena hadda kadib aan bilaawno inaan gobolada aan ka siino ayagana qayb u muhiim ah inay ka soo qayb qaataan muxuu ahaa waxbarashadan socota waayo qofka ama booliiska goboleedka ha ahaado ama booliiska federaalka ha ahaado wuxuu u adeega ummad Soomaaliyeed iyo cid kale oo la dhaqan oo ajaanib oo la dhaqan marka qofka booliiska Soomaaliyeed meel kasta uu joogo wuxuu u adeega inuu ilaaliyo hantida in nafta muwaadinka Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta kale ee sida sharciga ay kula degan ee ayagana adiga ku hoos imaanayaan runtii marka booliiska waa booliiskii bulshada